like saar sidoo kalena sii sheer garee muuqaalka aan guda galno warbixinta oo dhammaystiran. Guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay in 15 May ay dhici doonto doorashada madaxweynaha. Soomaaliya ayaa yeelan doonta madaxweyne cusub 10 maalmood gudahood haddii uu sidiisa u fulo jadwalka uu guddigan shaaciyey. Arrintan ayaa la rumaysan yahay inay ku timid cadaadiska beesha caalamka oo hakad geliyey dhaqaalihii iyo deeqihii ay siin jirtay Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulamo kala gooni ah oo shalay yeesheen waxay iska soo xuleen guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dardar xoogan geliyey qabsoomida doorashada. Guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ayaa dhan 17 xubnood waxayna 10 ka mid ah iska soo dhex xulay xildhibaanada golaha shacabka, halka 6 xubnood ay soo xuleen xildhibaanada aqalka sare, halka xubinta dheeriga uu magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka. Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda kala guurka, iyada oo hanaanka doorashooyinka ay wajaheen culayso iyo khilaafyo hor leh oo markii dambe badankooda xal laga gaaray. Dhinaca kale, guddiga doorashada madaxweynaha ee labada aqal ee baarlamaanka ee shalay la soo saaray ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyey, waxaana guddoomiyey Senator Cali Shacbaan Ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare. Kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Xildhibaan Cabdulaahi Cumar Abshirow, iyada oo guddoomiye loo doortay Senator Cabdiqani Geele Maxamed oo golaha ka soo galay Puntland, wuxuuna helay 10 cod. Sidoo kale Xildhibaan Maxamed Axmed Beerey oo tartanka qayb ka ahaa ayaa helay 5 cod, halka Senator Cabdi Ismaaciil Samatar uu isna helay 2 cod oo kaliya. Xilka guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa isna waxaa loo doortay Maxamed Keerow Maxamed oo helay 9 cod, halka Maxamed Ibraahim Macalimu oo la tartamay uu helay 7 cod oo ka mid ah xubnaha guddigaasi. Guddiga ayaa looga fadhiyaa inuu dedejiyo doorashada, isla markaana uu soo saaro habraaca iyo jadwalka doorashada madaxweynaha oo si weyn loogu loolami doono. Dhinaca kale, waxaa Muqdisho ka socda kulamo ballaaran oo siyaasadeed, isla markaana qayb ka ah ololaha doorashada madaxweynaha, kuwaas oo ay wadaan musharaxiinta madaxweynaha oo hadba dhinac u kala jeedinaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. Doorashada Soomaaliya ayaa guud ahaan daahday kadib markii ay marar badan dib u dhaceen jadwaladii la soo saaray, taas oo uga sii dartay xaaladda adag ee lagu jiro. Waa warbixin xasaasi ah, waa arrin maalmihii u dambeeyey bannaanka timid isqobqobka iyo kala shakinta ku dhacday musharaxiinta mucaaradka ah, qaar ayaa faylaha isjaraya halka qaarna farmaajo taageero ka raadsadeen. Haddaba intaynu guda gelin warbixintan, fadlan janalka Warkeen TV subscribe saar oo muuqaalkan like saar, sidoo kalena sii sheer garee muuqaalka aan guda galno warbixinta oo dhammaystiran. Doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa bannaanka keentay guuldaro siyaasadeed oo soo wajahday murashaxiintii nabad iyo nolol. Kooxaha mucaaradka ee u midoobay ayaa qaatay dhammaan kuraasti guddoonka, iyada oo doorashooyinkaasi aysan ku soo bixin wax musharax nabad iyo nolol ah, taasi oo mucaaradka ay u arkaan mid bilow fiican u ah in dhabarka la jebiyo nabad iyo nolol. Mucaaradka waxay isbideen guul siyaasadeed inay gaareen, iyagoona iska dhaadhiciyey in laga guulaystay nabad iyo nolol, guuldarrada ku dhacdayna laga tixraaci karo doorashada madaxweynaha qaabka ay noqon karto, waxayna xaqiiqsadeen guul aan la hubin halka ay ku dambayn doonto. Guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo ah mucaaradka, gaar ahaan xisbiga Himilo Qaran, isla markaana guddoomiyennimadii uu ka hayay maalmo ka hor iska casilay, ayaa guushiisa waxay xaqiijisay in Sheekh Shariif Sheekh Axmed boorka iska jafo, waxayna kooxdiisa ololaha doorashada dhexdooda qireen in madaxweynaha soo socda saadaaliyaan inuu Shariif ka yahay. Waxay bilaabeen dacayado iyo dagaal hoose oo murashaxiinta kale ku fogeynayaan. Kooxda Sheekh Shariif ee dhinaca warbaahinta u qaabilsan ayaa waxay sidoo kale bilaabeen propagando ay ku marin habaabinayaan shacabka, iyagoo adeegsanaya sawirrada kulamada siyaasadeed ee madaxda iyo ra'iisul wasaare Rooble la yeelanaya, iyagoo ka dhigaya Sheekh Shariif murashaxa hogaaminayo kulamada siyaasadeed iyo arrimaha doorashooyinka ee mucaaradka lagala tashanayo. Xafiiltanka siyaasadeed ee murashaxiinta ayaa ah kan ugu daran mid ay kooxda ololaha ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ku qaadayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
labada dhinac ayaa ololahooda si xowli ah u socda, wuxuuna mid walba ku jiraa dagaal hoose oo laga warqabin, kaasoo guntiisa tahay colaadii hore iyo in Xasan Cali Khayre lagu riixayo nabad iyo nolol oo horay ugu tirsanaa. sidoo kalena saadaasha mucaaradka kale ay tahay in haddii Farmaajo wareega koowaad ku guuldaraysto in codkiisa ugu shubi doono Xasan Cali Khayre si walba ha ku dhacdee. Xasan Cali Khayre oo eed siyaasadeed iyo colaad kaleba kala dhexaysay mucaaradka intii uu ahaa nabad iyo nolol ma jirto meel uu cudurdaar ku siiyey madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed, waana sababta xifaaltanka keenay taasi. Saciid Cabdulaahi Deni, madaxweynaha Puntland ee farqaha la haysto, waxaa culays siyaasadeed uu ka haystaa deegaankii uu ka yimid ee Puntland. Deni ololahiisa doorashada waa siyaasiga keliya ee suuqa soo geliyey dhaqaalaha ugu badan. hamigiisa doorasho marka laga soo tago colaada uu u hayo Farmaajo waa mid gaamurtay, ololahiisana waxaa qayb ka ah dagaal uu ugu jiro inaan dib dambe loo dooran Farmaajo. xiriirka kala dhexeeya murashaxiinta kale waa mid aan cago badan ku taagnayn oo mar walbo la filan karo inuu lugta uu kula jiro mucaaradka kala baxo, waxaase loo arkaa murashax codkiisa gorgortan siyaasadeed aakhirka ku galaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ololahiisa la dhayalsan karin, waa hogaamiyaha keliya ee 5 sano lasoo dhaafay keligiis cidiyaha kula dagaalamay Farmaajo. Hadda wuxuu u muuqdaa inuu dhabarka u jeedin doono kooxdii uu ka tirsanaa ee mucaaradka. Wuxuu bilaabay ololeysi ku dhisan qabiilaysi iyo in uu soo dhaweysto xubnaha ku matalayo baarlamaanka Soomaaliya. wuxuu kalsooni ka raadsaday madaxweynaha Galmudug, ra'iisul wasaare Roble iyo cid kasta oo uu arko inay iibin karaan siyaasadiisa. murashaxiinta miisaanka leh sida Dahir Maxamuud Geele, Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Cabdulqaadir Cosoble ayaa ah kuwo qunyur socod ah oo gooni daaq ah, mid walbana wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu u kasban lahaa xildhibaanada cusub ee qaangaarka ahayn. gabagabadii, murashaxiintii u midowday Farmaajo maanta uma muuqdaan kuwo ku midaysnaan doona in xilka la dhaafsiiyo Farmaajo. isku maqnaanshahooduse waxay fursad dahabi ah u noqon kartaa nabad iyo nolol oo markaan wadata musharax Xasan Cali Khayre. Farmaajo ayay guushu raacaysaa maadaama siyaasadiisii nabad iyo nolol ay dalka ka sii talinayso 4 sano ee soo socota. haddii uu soo baxo Xasan Cali Khayre, Khayre waa saaxiibka qarsoon ee Farmaajo iyo Fahad. waa naga intaa warbixintan oo aad kala socoteen janalka Warkeen TV. fadlan janalka subscribe saar oo nagu soo biir, like saar oo sii share garee intaan dib u wada